kulankan oo ay wada qaateen waxgaradka odayaal dhaqameedyada iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlayay sidii ay ku heli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin dawladda. waxaan ugu horeyn kulanka ka hadlay Xuseen Saalim oo ah duqa jaaliyada beesha Carab Soomaali. saas xal ma noqonayo hal kursi aan baarlamaanka ku haysana annagoo Carab Soomaali ah oo nala yaqaano oo Soomaaliya dhan deganay min raaski Yambone ilaa maxay iska noqotay shicir camal min raaski Yambone ilaa min raas Caseer ilaa raaski Yambone on ku cilcilinayna waa dhab waa run been ma aha meelahaas dhan ayaan ku noolnahay tuulo kasta ayaan ku noolnahay waxaa naga maqan kaliya inaan yani isku imaano is ururino hal kalimad noqono tafaruqaadka liska ilaaliyo wixdada lagu dadaalo hal in la noqdo lagu dadaalo lianna waxa aan hadda ku socono wax fiican ma aha ururkan ama shirkan oo maanta meeshaan lagu qabanayo waa shirkii ugu horeeyay oon ku kulmayno si nala ogaado walaalaheena Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay ogaadaan inaan jirno ina qowmiyad jirto inaan nahay oo leh dhalinyaro haween odayaal mutacalimiin muthaqafiin. kulanka oo khudbado kala duwan laga soo jeediyay ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahayd Marwo Baarliin Cadami oo ka mid ah haweenkii ka qayb galay. waxa waay anaga hadda maanta waxaan isugu nimid oo ugu horeyso horta waxa waay inaan masiirkeena ka hadalno masiirkeena oo ah xuquuqda aan ku leenahay wadankan aan deganahay aan ku noolnahay aan Soomaali aan nahay in kastoo Carab Soomaali aan nahay laakiin dad Soomaali aan nahay degan u dhashay meeshaan xuquuq badan ku laha xuquuqda naga maqan marka maxay tahay nasiib darro horta waagii carta waxaa nagu dhacday nasiib darro xoog leh taasoo ahayd inaan xildhibaannimo hal kursi u helno maantana halkaas kursi dhibaato badan oo noo keenay taasoo ah xuquuqdeena inaan ku dhuminay oo aan ku heli weynay sababtoo aqlibiyad badanba baarlamaanka kuma aana dhihin nasiib darrada kale oo na heshayna waxaa waaye baarlamaanka dadka noogu jirane inay aqlibiyad iyo xiriir dad kale aysan la samaysanin oo meeshaas aanan ku lahayn quwad weyn oo isku daafacno oo danihii masiirkii carabta meeshaas ay ku dhuntay maxaa ku soo xigta marka maxaan rabnaa marka hadda waxaa jirta waxaa la dhisayaa aqal sare madaxweynaha Xasan Sheekh waxaan u sheegaynaa haddaan Carab Soomaali nahay annaga iyo dawladda dhan ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka intaba waxaan u sheegaynaa inaan xuquuqdaas annaga aan leenahay in horey haddiina la dugsiyo xuquuqdeeni inaan midaan la dugsiinin aan kursigeenaas helno. ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay Xamduuni Abuubakar oo ka mid ah milkiilayaasha TV-ga Universal waxaana ugu baaqay in ay ka wada shaqeeyaan midnimada. horta sharaf ay tahay macnaha ijtimaac ana ka soo qayb galo macnaha ma isdheenan dad oo sida casaa camal jira ma sha Allah dad isku xiranaantiin midnimo wataan ma jirta la dhaayo safarka oo kun kameel la safrayo hal tilaabay ku bilaabataa oo ku faraxsana ma sha Allah maadaama qof dad jiraatiin oo gadarinkan isku imaateen ilaahay guul iyo midnimo aniga dhaxdhaliyo anaga Universal ay garab taaganahay. Luul Xuseen Cilmi Universal TV Muqdisho.